munaasabada ay ku qalin jibinayaan arday dhamaysatay waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadda kuwa oo ka qalin jibiyay jaamacadda Modern ee magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedyada Galmudug iyo Puntland aqoon-yahano ka socday jaamacadaha dalka culimada gobolka Mudug iyo xubno ka tirsan bulshada qaybooda kala duwan gudoomiyaha jaamacadda Modern farceeda Gaalkacyo injineer Madad Cabdullaahi Siyaad ayaana ugu horeyn ka warbixiyay xafladani ujeedkeedu waxay tahay waa xafladda qalin jibinta ardayda jaamacadda Modern farca Gaalkacyo waana dufcadii labaad ee maanta ka qalin jibinaysa jaamacadda Modern farca Gaalkacyo waxaan rabaa inaan u hambaliyo si hordhaca ardayda maanta qalin jibinaysa sidoo kalena aan kelmad ka iraahdo jaamacadda Modern farca Gaalkacyo أنا سود وياه دمان كسر بلاش حفلة جامعة مودرن فرع قالكعي وحلا فري أفري لبعضن كبيش السديدات لبكون ثمان سديد يلا فري وشيد كلا فرينا ومد أدمانتي أركيستان مرها كسب حي وهي جامعة كم بسوين كلها مجال مقدشو كان وفرع لبعض قالكعي ardayda maanta jaamacadda ka baxaysa sidaan sheegay waa 22 arday waxayna kala yihiin 10 gabdhood 12 gabdhood andhahe iyo 10 wiil 12 gabdhood iyo waxay kala yihiin andhahe 10 wiil 22 arday ayaa ka baxaysa waxaan leenahay ardayda maanta qalin jibinaysa hambaliyo gudoomiyaha golaha sare ee culimada Galmudug Sheekh Muxyidiin Yuusuf Barre ayaa isla dardaaran ku aadan la dagaalanka isticmaalka maandooriyaha u jeediyay bahda waxbarashada iyo wasaaradaha waxbarashada Galmudug iyo Puntland gudoomiyaasha degmada Gaalkacyo ee dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug Xasan Maxamed Jaamac iyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaale ayaa iyaguna xusay in horumarka waxbarasho ee ka jira gobolka ay ku timid amniga iyo nabadgelyada sida awgeedna looga baahan yahay bahda waxbarashadu in ay bulshada ku wacyigeliyaan ilaalinta nabadda ka jirta Gaalkacyo iyagoo dhanka kalena ardayda ku booriyay sidii ay kaalintooda uga qaadan lahaayeen la dagaalanka ciribtirka fikirka kooxda khawaarijta al-shabaab kuwa oo haatan ay sheegeen in ay sii dabar go'ayaan waxaan rabaa inaan iraahdo bulshada qiimaha badan ee reer Gaalkacyo farxadan iyo damaashaadkan farxad bay noo tahay dafcadii koobaad ee jaamacadda Modern oo ka soo qayb galnay dafcadii labaad maanta u joognaa farxad weyn bay noo tahay in labadaba ka soo qayb galno ilaahay baa ku mahadsan waxay ku timid waa nabadda ilaahay baa ku mahadsan nabad baa naas la nuuga leh waxaan rabaa bulshada inta joogtay inta dhageysanaysa inaan iraahdo Gaalkacyo iyo gobolka Mudug iyo isteediyada dhammaan waxay nagu deeqaan nabad haday tahay arrimo qabaliya konflikt lagu abuuro oo aan naqaanay cawaaqib xumadiisa haday tahay argagixisada al-shabaab oo ummadan ugus oo ummadan xasuuq iyo dhibaato u geysto meel looga dhaqaaq la waayo oo maanta ay ogtihiin Gaalkacyana ta meeshii koobaad ka hor timid oo u bareertay oo garbisay oo ummadda tustay in la diriri karo qof le shabaab waa dilayaan oo si nabad magaalada dhexe ku mari karo maantana Soomaaliya dhan u jeesatay ayagana cirib go'ay qof oo geed hoostiis gurguranaya ka haray oo asaguna meel iska soo dhiiba raadinay arintaas waxaan rabaa aragtida xaq jirka oo guracan dhalinyarada waxaan kula dardaarmo arinta laga hortago xaq jirnimada guracan oo dhiigga islaamka banaysanaysa oo ku qanacsanay subax walba dhiigga islaamka ku quracatay hameen walba meeshii lagu arko ha lagu cirib tiraana laga hor yimaado munaasabadan intii socotay ay ka hadleen waalidiin aqoon-yahano iyo mas'uuliyiin kala duwan ayaa waxaa gunaanadkii soo afmeeray gudoomiyaha waxbarashada gobolka Mudug ee Galmudug Axmed Jaamac Aadan Qooday iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Galmudug Cabdiraxmaan Maxamed Axmed kaliya in oo shaqada iyo hal abuurka laga raajiyo hay'adaha maahan dadka inta badan focuska waxay saaraan qofka markuu wax barto shahaado inuu ka helo hay'adna shaqo ka helo laakiin waxa fiican in la fakaro oo fikradaha sameeyaan ganacsiyo sameeyaan hal abuur sameeyaan wixii hore wax ka duwan inay soo saartaan warjeena insha Allah in aad dadaal doontaan oo waxa barateen kamera dhalin doontaan waxaan si gaar ah ugu mahadcelin
qalinjibinta ardadan ka baxday jaamacadda Madaran magaalada Gaalkacyo ayaa ku soo beegmaya xilli sanadihii u dambeeyay Gaalkacyo laga dareemayo horumaro dhanka waxbarashada taasoo inteeda badan ku timid amniga nabadgelyada iyo dibashinta ka jirtay magaalada Gaalkacyo laga soo bilaabo 2016 December 2020 xilligaas oo ahayd markii ugu dambeysay ay Gaalkacyo ka dhacaan colaado iyo dirir sabab jirta in kumanaan caruur Soomaaliyeed ay ku waxbarasho seegaan عبد الرزاق محمد أحمد ورباهنتا قرانك الصوماليا قال كعي